mifuko. Sawa? Mfuko mmoja ikiwa nyingi ni mifuko. Mfuko mifuko. halkani waa iskuulka hoose dhexe iyo sare Al-Micraaj Integrated Academy oo ku yaala xeerada qaxootiga Xagardheer. Al-Micraaj waxa la hirgeliyay bishii September ee sanadkiina dhaafay 2018. iskuulka waxa hadda wax ka barta boqolaal arday oo dhigta qaybaha kala duwan ee iskuulka. sida magaca ka muuqata iskuulka waa iskuul isku dhafa oo lagu barto maadiga iyo diiniga. ardayda iskuulka Al-Micraaj oo qaarkood ka yimid iskuulaad kale maadaama iskuulku uu jiro muddo bilo ah ayaa aad u amaanay tayada waxbarashada iskuulkooda iyagoo barbar dhigaya iskuulaadkii kale ee ay ku soo qaateen qaybihii hore ee waxbarashadooda. Abdul Mohamed Ahmed iskuulkan secondary gala form 2 waxaan ku soo biiray bishii koowaad oo sanadka January iskuulkan igu hore waqti aan baa la furay ugu hore soo galay waan ahaa soo biirsan la furay kulku aad iyo aad u fiican yahay macallimiin waxaan ku dhaayto high quality ah waxaan ku dhaayto fiican baa jooga aad u fiican baa jooga magacayga Samir Ismail Abdulqaadir waxaan dhigtaa Al-Micraaj Secondary School أنا class form 2 class كلابات لا school كان هذا كان شيء ما شاء الله high education school كان برشيدس ما شاء الله كمبيوتر لابي له هاي برشة سأقول صعود ما شاء الله معلمين very expensive واي. أنا اسمي عبد المجيد علي الأوقاس أدرس مدرسة المعراج الأكاديمي. أنا صف السادس عمري 18 سنة. نظمت هذه المدرسة عام 2018 وأدرس المادتين ديني ومادي وما شاء الله معي أحلى مدارس أو أحلى مدرسين وأحلى مدرسة المعراج الأكاديمي سكول. ardayda waxa la siiyaa cashiro la xiriira tarbiyadda islaamka waxaana kamid ah ardayda halka wax ka barata caruur ay waalidiintood kala soo laabteen dalalka dibadda sida Mareykanka iyo meelo kale. What's your name? Said Faisal Ahmed. So Said, in which class are you? Class 2. And how old are you? I'm 8. You're 8 years? 8 years old. 8 years old. So what's the name of your school? Al-Micraaj. Al-Micraaj Academy. Can you tell us something about Al-Micraaj Academy? When was it built? It was built 2018 September. And what about the classes? They start from which class up to which class? Baby class. Up to high school. Up to high school. So the maximum here is class 7, right? Sasa habari yako? Unaitwa nani? Unaitwa Amina Kuso Hassan. Amina Kuso Hassan. Amina, uko katika darasa gani? Unit. Uko katika pre-unit. Na shule yenu inaitwa aje? Al-Micraaj Academy. Al-Micraaj Academy. Al-Micraaj inapatikana wapi? Agadera Camp. Agadera Camp. Katikati ya wapi na wapi? P3 and A3. And A3. Wow, hiyo ni vizuri. Abdulkhaliif Maxamed Yuusuf oo ku magac dheer macallin dirid waxa uu muddo ka badan 15 sano ku soo dhex jiray bahda waxbarashada xiriyaha Dadaab haddana waa maamulaha guud ee iskuulka Al-Micraaj Integrated Academy wuxuu ka warbixinayaa ujeedada ka dambeysay in iskuulkan la hirgeliyo iyadoo ay xiriyaha ka jiraan iskuulaad kale oo qaarkood wax looga barto si bilaasha. Hidiladan aragtay muxuu ahay iskuulkan u furnay waxay ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada qaxootiga ah ee reer Xagardheer inay ka faa'iidaan ay ka helaan aqoon ay u aayaan oo mustaqbalkooda ay ku maareeyaan kulleydaba hadda meeshii safarkii meel hoose aan ka soo bilaawno maanta wuxuu maraa meel wanaagsan intaasna kuma eko kulleydaba waxaan rajaynaynaa ma aragtay inuu ka sii talaabsado hor u sii socdo higsiga iskuulka waxa waaye arday walba oo imaado galaaska baby laga bilaabo ilaa uu ma aragtay primary levelka class 8 uu dhameeyo in uu ku socdo si constant ama ma aragtay xawli ama isdaba joog ah ardaydana waxaan ma aragtay muxuu ahaay ka xoojinaa dhinaca luqadaha waxa laga ogol yahay iskuulka ilmaha in ay ku hadlaan English iyo Kiswahili base luqad kale lama ogolo waxa soo raaca luqadda Carabiga qofkii Carabi ku hadli karo oo arday uu ku hadli kara way u banaan tahay luqadaha kalena labada baa lagu hadli karaa af Soomaaliga ma aragtay muxuu ahaay ardayda si hadalkooda ama ma aragtay muxuu ahaay aqoontooda xagga ma aragtay muxuu ahaay luqadaha qalaad ay kor ugu soo kacdo ayaan aragtay afka Soomaaliga ka istaajinay af Soomaaliga aan istaajinna sababta ma ahan in af Soomaali aan lagu hadli karin
sababtoo ah Soomaaliga waxa looga hadlaa qoysaska ilmahan ay ka imaadaan maamooyinka iyo aabayaashii guriyaha jooga mar walba kula hadlo waxaan iskuulka aga istaajinay sababta amarka inta iskuulka ay joogaan xiisadaha waxay ku baxaan luqadda Englishka ay ku baxaan Cabdi Khaliif ayaa sheegay in iskuulka ay joogaan macallimiin khibrad leh iyadoo sidoo kale buu yiri ay door ciyaarayaan waalidiinta ardayda iskuulka Al-Micraaj waxaa joogo ma aragta muxuu ahay iskuulka macallimiin tababaran oo Kenyan iyo Soomaali labadaba isugu jiro macallimiintaasna macallimiin aan ka fikirno way markaan iskuulka keenayne oo ma aragta baahida ay qaxootiga iyo dadka ma aragta meesha ku nool ay qabaan annagoo daraasayne oo ogaana ma aragta muxuu ahay dadka meeshan joogo waxay u baahan yihiin ayaan baahida ku jaangoyno macallimiinta aan keenay nooca ay yihiin waana ku qanacsanahay macallimiin aan ku qanacsanahay 100% waay waxaana la joogo waalidiin aad u wanaagsan oo ma aragta muxuu ahay go'aansada ilmahooda in ay nagu aaminaan annagana waxaan ma aragta muxuu ahay go'aan iyo ballan labadaba ku qaadne ardayda ay nagu aaminaan inaan khasaarin oo ma aragta xagga waxbarashada si fiican looga dhiso mustaqbal wanaagsan loo sameeyo si aayahooda dambe ay isu maareeyaan ayaga isugu filnaadaan iyo qoysaskoodaba Axmed Abdullahi Jaamac Axmed Deere Maakhir Cable TV xiriyaha Dhadhaab